بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كوسو دوادا برنامجka ganacsiga oo aad xilligan oo kale uga barateen TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee SNTV barnaamijka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana idila socodsiin doona anigoo Aadan Maxamed Salaad barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa kobaca dhaqaale iyo xaaladaha kala duwan ee ganacsi ee xilligan ka jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana barnaamijka marti iigu ah mudane Maxamed Shariif oo ah madaxa maalgashiga markaasi rugta ganacsiga ee JCCI sidoo kale waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa xaaladaha kala duwan ee ganacsiga iyo kobaca dhaqaale ee xilligan ka jira sidayna ognahayba meelo badan oo kamid ah deegaanada Jubbaland waxa xilligan ka muuqanaya in ay ka soo korayso dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhaqaale xumo ee haystay muddo ka badan 20 sano balse waayadii u dambeysay tan iyo markii Jubbaland ay la wareegtay guud ahaan deegaanada Jubbooyinka waxa jiray isbedel dhinaca dhaqaalaha ah waxa aad u mashquul ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo oo tiradii ugu badneed ee gaadiid iyo dad shacab ay isugu yimaadeen magaalada Kismaayo kuwaas oo ka soo kala laabtay meelo badan oo kamid ah dunida inteeda kale iyo sidoo kale dalalka dariska waxa jira maalgashi aad u fara badan oo lagu sameynayo deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaana arintaas ay ku soo gashay oo lagu macneeyay amniga dawlad goboleedka Jubbaland uu xaqiijiyay darteed sida ay markaasi inoo sheegeen dadka khubarada ah ee markaasi ku xil dheer arimaha amniga barnaamijka arimahaas ayaan hadduu ay yiraahdo aynu ku falanqeyn doonaa marka hore ku soo dhawow Maxamed Shariif barnaamijka aad ma santahay hada waatahay imika su'aasha ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa Maxamed Shariif madaxa maalgashiga rugta ganacsiga ee JCCI ee Jubbaland bal inaan weydiiyo bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladaha kala duwan ee ganacsi ee guud ahaan deegaanada Jubbaland xilligan ka soconaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed SNTV waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wariye Aadan Kismaayo aad baan ku mahad celinayaa fursaddan wanaagsan ee la siisay maanta TV-ga qaranka iyo adigaba iyo dhammaan shaqaalaha TV-ga iyo mataqaana maxaa jiray aad baan marka hore ka mahad celinaynaa marka labaad hadaan u soo noqdo xafiiska rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland JCCI sidaad ka warhaysid wuxuu la jaan qaaday bilowgii iyo hirgalkii arrimaha federaalka ee Soomaaliya ka hirgalay ee Jubbaland ayuu la jaan qaaday arrimaha ugu waaweyn ee aan qabanay ee la taaban karo waxa kamid ah inaan aruurinay ganacsatadii iyo ganacsiga Jubbaland ee kala baahsanaa inaan aruurinay oo ku guuleysanay inaan aruurino dhammaan ganacsatadii iyo ganacsigii Jubbaland tusaalahan hadaan soo qaato waxaan sameynay waaxyo yaan sameynay oo ganacsiga aan u sameynay waaxyo kala duwan waayaha waxaan soo qaadan karaa waaxda beeraha waaxda kalluumaysiga waaxda xawaaladaha waaxda mataqaana telecommunicationka waxaas oo dhan ayaan marka hore ganacsiga u kala qaadnay marka waxaan dhihi karaa muddadii koobneed ee jirnay rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland JCCI waxyaabo fara badan inay noo qabsoomeen waxyaabo badanna ay wali qabyo naga yihiin waxyaabaha noo qabsoomay saa hore u sheegay ay ugu horeyso inaan aruurinay ganacsatadii iyo ganacsigii aan u sameynay system iyo nidaam iyo waxa loo yaqaano membership certificate aan u sameyno oo ah shahaadada ka xubinnimo ahaanshaha rugta ganacsiga iyo warshadaha oo dhihi karno in sanad walba sanadka ka dambeeya ay sii ziyaadayaan xubnaha na soo weydiista inaan mataqaana maxaa la dhihi jiray aan ay xubin ka noqdaan ganacsiga iyo rugta ganacsiga Jubbaland sidoo kale waxaan xiriir soo kala leenahay wasaaradaha heer state Jubbaland ee cilaaqo la leh ganacsiga iyo wax soo saarka tusaale ahaan waxaan cilaaqo soo kala leenahay wasaaradda ganacsiga oo ah mataqaana aabihii ganacsiga haddii anagu rugta ganacsiga warshadaha aan nahay hooyadii ganacsiga aabihii ganacsiga waxay wasaaradda ganacsiga waayo waxay noo dejisaa sharciyadii aan ku shaqayn lahayn maxaa la dhihi jiray iyo wixii la kala hagi lahaa xiriir soo kala leenahay wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland xiriir soo kala leenahay
waayo canshuurta wax laga qaado waa ganacsato ganacsatii canshuurta laga qaadahayeyna waxay xubin ka yihiin annaga waxaa xiriirso kala leenahay wasaaradda gaadiidka wasaaradaha wax soo saarka oo dhan ee mataqaanaa Jubbaland waxaan la leenahay xiriir soke oo wada shaqayn marka waxaan dhihi karaa su'aashaadii haddaan u soo noqdo waxyaabo fara badan ayaa noo qabsoomay waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamed shariif waxaa tahay madaxii maalgashiga tahay ee deegaanada ama rugta ganacsiga ee JCCI maxaad noogu sheegi kartaa waxyaabaha xilligan ee ka soconaya ee arrimaha maalgashiga ku saabsan guud ahaan Jubbaland su'aasha waa su'aal aad u fiican aad baad ugu mahadsan tahay marka la yidhaahdo maalgashi wuxuu qaataa foomam kala duwan oo fara badan wax kasta oo Jubbaland oo maalgashi lagu sameeyana annaga wuxuu noo yahay muhiim buu noo yahay haddii aan guud ahaan aan kor maro maalgashigu wuxuu noqon karaa maalgashiga dhinaca beeraha maalgashigu wuxuu noqon karaa maalgashiga dhinaca kalluumaysiga maalgashigu wuxuu noqon karaa dhinaca xoolaha iyo livestock iyo hilibka ayuu noqon karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa batroolku noqon karaa wuxuu noqon karaa maxaa la dhihi jiray waxa loo yaqaano infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaalaha laamiyada airportada dekadaha waxaasoo dhan waxay noqon karaan maalgashi laakiin haddaan su'aashaada u soo noqdo jawaabteeda rasmiga ah haddaan annagu nahay Jubbaland waxaa noo hirgalay maalgashi sanadihii yarka ahaa ee jirnay oo la taaban karo waxaan tusaale u soo qaadan karaa waddankan waxaa dib ugu soo noqday dad fara badan oo ah qurba joog oo diaspora ah ayaa dib ugu soo noqday maalgashiga ugu weyn ee ay magaalada ku sameeyeen waxa ugu muhiimsan maalgashiga dhinaca hoteelada dhinaca hoteelada yacni Kismaayo maxaa la dhihi jiray iyo guud ahaanba Soomaaliya maalgashiga guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Kismaayo meelaha ugu muhiimsan ee ay ganacsatadu wax ka qabteen dhinaca maalgashiga waxa ugu muhiimsan dhinaca hoteelada waxaan kaloo soo qaadan karnaa dhinaca dhismaha maalgashiga dhinaca dhismaha waddo kasta ood martid bil kasta bisha ka dambaysa waxaad arkaysaa guri cusub oo la dhisahayo marka maalgashiga ugu horreeya waxaan dhihi karaa dhinaca hoteelada maalgashiga labaad waxaan dhihi karnaa waa maalgashiga dhinaca maxaa la dhihi jiray guryeynta waxaan dhihi karaa maalgashiga ku xiga waxaa weeye dhinaca diyaaradaha waxaad arkaysaa Kismaayo yani maalin kasta waxaa ku ziyaadahaya ama Soomaaliya guud ahaanba maalgashiga dhinaca diyaaradaha faleedka oo arkaysa maalin kasta in meel kasta xafiis cusub laga furahayo waxaan dhihi karaa waxaa kor u kacay badeecadihii maalgashiga badeecadaha yaa kor u kacay waxaa kor u kacay wixii aan dhoofinaynay waxaa kor u kacay wixii aan soo dhoofinaynay marka waxaan dhihi karaa shaqo fiican yaa la qabtay aad baad umahadsan tahay maxamed shariif su'aal kale haddaan ku weydiiyo marka laga tago maalgashiga iyo waxyaabaha hadda ugu muhiimsan ee hadda la maalgashanayo waxaa jirta ganacsatada qaar waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin kala duwan ay cabasho ay qabaan oo ku saabsan xagga canshuuraha oo kale qaarkood ay lacaga fara badan inta lagu soo dalaco dhibaato cabasho noocaas ay qabaan marka cabasho iyaga iyo maamulka oo kale uu yimaado maxaa ku xalisan waa su'aasha su'aal u fiican weeye waana shaqada ugu muhiimsan ee annagu rugta ganacsiga warshadaha aanu qabanno waayo annagu waxaan u dhaxaynaa dawladda iyo ganacsatada u dhaxaynaa kadib markaa ganacsadii aan isku keennay ee nidaam u samaynay ayaan dawladdii maxaa iyagana aan u kala dhaxaynaa waayo waxaan ognahay ganacsigu meeshu heerku marahayo ganacsigu wuu kala duwan yahay ganacsiyo waxaa ka soo qaad bariiska iyo baastada iyo waxa la soo dhoofinayo annagu waxaan ognahay iyo sokorta iyo annagu waxaan ognahay heerarka u marahayo ganacsiga buumiska ah ganacsadu ay faa'iido badan ka hesho iyo ganacsiga buumiska aan ahayn ee khasaare uu ku jiro annaga garanayna marka arintaas waan soo dhaweynaynaa dawladdana mataqaanaa maxaa jiray shaqo wanaagsan baan ka qabanay waxaana markasta aan isku daynaa in ganacsiga iyo ganacsatada aan u soo dhaweyno wax alla wixii mataqaanaa maxaa la dhihi jiray kaga xidhan canshuuraha xagga dawladdana aan ku dhammayno si is-afgarad ah oo dawladduna ay raalli ka tahay ganacsataduna ay raalli ka tahay waayo ganacsatada iyo mataqaana iyo dawladduba annaga runta ganacsiga u dhaxayna waxayna noo tahay mataqaana maxaa la jiray kalsooni badanna ganacsadana way nagu qabaan ganacsato kalsooni badanna dawladdana way nagu qabtaa marka waxaan dhihi karaa arrintaasi wax badan baan ka qabanay waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabada barnaamijkeena ganacsiga bal intaanan ka bixin barnaamijka aan weydiiyey maxamed shariif madaxa maalgashiga ee rugta ganacsiga ee JCCI gabagabadii baan soo gaarnay maxaa baaqa oo aad jeedinaysaa oo aad ugu baaqaysaa dadka qurba joogga ah ee Soomaaliyeed ee Jubbaland ka soo jeeda
بسم الله الرحمن الرحيم aad ما سنتهي باقي ugu horeeya aan jeedinhayo waxa weeye cilaaqada la ganacsiga iyo maalgashiga in Jubbaland nabad tahay ma taqaan la maalgashan karo marka waxaan baaq u jeedinayaa marka ugu horeysa qurba joogta u dhalatay reer Jubbaland meel kasta dunida ka joogan inay yimaadaan Jubbaland oo ay maalgashadaan maalgashiga ay maalgashanayaan ma aha maalgashigu uu nooc badan yahay ruuxii noo yimaada hatta isagoo aqoontiisa maalgashanaya oo aqoontiisa noo yimaada maalgash bay noo tahay ninkii ku dooran noo yimaada maalgash bay noo tahay hatta ninkii dalxiis u yimaada intuu bil joogo hoteelada seexdo maqaayadaha wax ka cunaa lacagtaasi wuxuu uga tagayaa consumption dhaqaalaha ayuu uga tagayaa guud ahaan waxaan leeyahay mataqaana waxa jiray Soomaaliya ganacsigu xuduud ma laha qabiil ma lahan wadan ma lahan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana waxaan ugu baaqaynaa Jubbaland inay yimaadaan oo ay maalgashadaan oo ay meel alla meesha adduunka ka joogaan ay ka yimaadaan ay maalgashadaan waxaan leenahay kulliin ku soo dhawaada Jubbaland waa wadankiini waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii ganacsiga ee telefishinka qaranka ayaan ku guda jirnaa iminkana waxaa inoo suurto gashay bal in aan la kulanno gudoomiyaha rugta ganacsiga ee JCCI Shaafi Rabi isla mar ahaantaana waxaa qayb ka ah maalgashade Swedish ah oo ka yimid dalka dibadiisa oo doonaya in deegaanada Jubbaland uu markaasi maalgashi ka sameeyo Shaafi baan markii hore ku soo dhaweynaya gudoomiyaha JCCI aad waa mahadsan tahay kulan wanaagsan waxaan u mahadcelin bahda SNTV TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa mahadsantiin wanaaga iyo sida aad dalkiina u shaqeynaysaan waxaan runtii gacmo furan aan ku soo dhaweynaa haddana ku soo dhaweynaynaa maalgashadayaasha dalka u dhashay iyo kuwa aan dalka u dhalin dalalka aan ganacsiga naga dhaxeeya ama xiriirka wanaagsan iyo saaxiibtinimada naga dhaxayso ninkan waxaa la yiraahdaa Master John wuxuu nala joogay 3 bari ee u dambeysay oo halkan uu soo booqday annaga marti qaadnay waa maalqabeen reer Sweden wuxuu rabaa inuu indheeyo maxaa la maalgashan karaa ma hoteelada la maalgashan karaa ma warshado kalluumaysi baa la maalgashan karaa ma dalka waxyaabihii bayska ah ee wadooyinka iyo waxaan maalgashi fog la maalgashan karaa ma beeraha iyo wax soo saarka la maalgashan karaa maxaa la maalgashan karaa arrintaas uu daraaso ka sameynayay waxaanan jeclahay inuu wax badan oo kamida uu ku qancay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Master John Hollerson oo wadanka Sweden ka yimid aan rajaynayo inay maalgashadayaal iyo sharaa'ig ay saaxiibo yihiin waswaaska iyo cudurka dalka Soomaaliya laga qabo nabad ma aha inuu la kulmay wuxuu la kulmay uu ka warbixin doono Mr. John, welcome and appreciate to visit in Kismaayo, Jubaland State. Somalia is peaceful, yes. As you see. Yes. So welcome again. Thank you very much, Mr. Shaafi. And I'm honored to come to this beautiful, peaceful and quiet place. But I know and I can see around that here is a very good place to invest. Invest in factories, employers, houses, blacksmiths, everything. So I will be the ambassador for Kismaayo in my homeland, in Norway, in Finland, in Denmark, in North Europe. Because I have just 100% good experience of this place. So people who were telling me, don't go there, it's danger. I will give them back. I will say, that is not true. It's the peaceful and the safe place. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة سعوتان قدومية شافي وبحين كبيحيي يو متقاناي جون أو أهمال قشدة يمد سوماليا قدهان قارهان جوبلان هذا الذي سيادة سوكوبا وحكمدا إنه آد ردعي نبت قليدا يو هرمركا يو متقانا محل جري قناعسي كجري جوبلان قارهان قدهان بسوماليا وحون الديارو يهي إنه مال قشدو إنعا وشدها هذه هالنا هيد هذه هالنا إنعا متقانا محل جري قريها يو وح الله وحي علاقة لمالقشيغا وحونا قري إنه
u noqon doono Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Jubbaland ambassador u matala ganacsiga iyo mataqaana maxaa la jiray dhaqaalaha Soomaaliya ee waddanka ka soo jeedo sida dawladda Scandinavianka Sweden Norway iyo dawladaha Europe oo dhan marka John thank you very much you welcome Jubbaland thank you واتاي محمد شريف aad buu mahadsan yahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabada barnaamijkeennii ganacsiga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dawlad goboleedka Jubbaland barnaamijka sida aad markaas la socoteenba waxaanu kaga hadalnay xaaladaha kala duwan ee ganacsi ee guud ahaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo maalgashiyada xilligan ka soconaya magaalada Kismaayo barnaamijka waxa ay kala qayb galay Maxamed Shariif aad baan ugu mahad celinayaa madaxa maalgashiga ee rugta ganacsiga ee JCCI iyo Shaafi Raabi Kaahin oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo sidoo kale ganacsadihii ka socday dawladda Sweden barnaamijkeenina daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo toddobaadka dambe barnaamij mid kan la mid ah nabadgelyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Shariif aad iyo aad okay aad u mahadsan tahay thank you so much okay